السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمعة مبارك، جمعة جمعيه سكاليتو بشي برواقي إلها نوغارسي بإذن الله كريم. إلهي معركتي عافمات بوحتام إلها نسي جدك وناكسن إلهي نوغتوسي آمين يا رب العالمين. سلام كدب وحان جعلهاي مانتا إنا نيغال هادلو موضوع كسابسن هيليكوباكتر بيلوري انفكشن ama helicobacter pylori caabuq Soomaali ahaan infection markii lagu dhahaa waa caabuq. Su'aalaha aan isweydiinayna waxay ka mid tahay waqtigaaseeto ma aragtay muxuu yahay infection kaaneeto ama caabuqaaneeto, sideen ku aqoonsan kartaa, sidee xaal uu noqonayaa, iyo adiga shakhsi ahaantaada waqtigaaseeto waxa aad ka qaban kartid ayaan rabaa inaan mawduucaaseeto maanta nigala hadlo hadduu ilaahay iyo fududeeyo insha allah. kusoo dhawaada ma aragtay in wax ka faa'iideyno ilaahay idinkiis waan rajeynayaa. Okay, marka hadda mawduuceena haddaan hore u galno waa maxay helicobacter pylori infection kaaseeto waxaan af Soomaali ahaan haddaan waxa waaye haddii nigu faahfaahiyo waa jeermis oo aan lahayn garaam aan lahayn oo bini'aadanka calooshiisa aadanaha ku dhaco waaye. Waxaa la dhihi karaa ilaa hadda adiga wadamada galbeed Yurub boqolkiiba 10 ilaa 20% dad ah ayaa laga helaa bakteeriyadaaseeto, laakiin wadamada sida wadamada aan horumarsaneyn oo kaleeto waxaa lagu magacaabi karaa ama la dhihi karaa 60 ilaa 90% dadka waa laga helayaa. bas waxay cadeynaysaa taas inay badan tahay percentageigaaseeto wadamada aan horumarsaneyn inuu ku badan yahay bakteeriyadaaseeto. Marka helicobacter pylori waa jeermis ku noolaan kara xubnaha ama xabka dhinacyada caloosha. Caloosheenna anaga sideedaba ma aragtay dhinacyada gudaha wuxuu sameeyaa dheecaankaasoo dhanaankaasitana bakteeriyadan dhibaato mooga imaanayso way ku dhex noolaan kartaa. Marka caloosha waa qayb muhiim ah oo ka mid ah mareenka dheefshiidka. Gudaha caloosha waxaa ku daboolan xuub adag. Calooshu waa qayb muhiim noo ah oo ka mid ah mareenkeena dheefshiidka. Gudaha calooshane waxaa ku daboolan ma aragtay xuub aad iyo aad u adag. qanjarada ku jira xuubka dheecaanka caloosha waxa soo saaraan dheecaanka caloosha soo saaraan. Casiirkaas caloosha wuxuu ka kooban yahay markaaseeto hydrochloric iyo acid iyo enzymes ka kooban yahay iyo dheefshiidka iyo waxyaabo kaleeto ka kooban yahay inta aan kusoo koobi karin. Marka aashitada caloosha ay sameyso oo aashitadaasito hydrochloric waxay dishaa sideedaba ma aragtay bakteeriyada badan oo aan ku cunno cuntadeena oo cuntada ku dhex jirto wax walbo oo markaaseeto oo cuntada ka dhex helaysid bakteeriyadaas ku jirto ayay naga dilaysaa. Marka ilaahaas noo dhuumay noo dhaliyay meeshaas haataan loogu talagalay. Okay, marka infection kaaneeto sidee uu kugu dhici karaa ama jidkii kuu soo mari karaa. Horta ilaa hadda wax inta la ogyahay waxay tahay waqtiga caruurnimada la yahay inuu badana qofku ku soo dhaco oo waqtigaas infectionka uu soo gaaro waliba markay 5 sano ilmaha ay ka yar yihiin. Intaas waxaa si dheer waxa ognahay kaleeto waxa waaye in qofka kale inuu ku daaran karo infectionka markaa qabtay qofka kale inuu kugu daaran karo. teeda kale waxa jirto waxay tahay inay keeni karto u badan tahayne ama muhiimada badan ku jirto waxa waaye nadaafad darada inay ma aragtay howlo weyn qayb weyn inay ka qaadato infection kaaneeto markuu qofka kale ku daaranayo. Marka haddii qofku uu ku dhaco bakteeriyadaaseeto waxay ku sii jiri doontaa markaaseeto caloosha ilaa intii oo laga daaweynayo qofkaaseeto maahina inta kale uu kugu dhex noolaanaya ma ka baxaayo. Okay, su'aasha xigta waxay tahay markaaseeto sidee ku garan karaan inaa xanuunkaaneeto iqaayo dhibaatooyinkee kala kulmi kartaa. Horta dad badan
bakteeriyada way haysaa laakiin wax dhibaato iyo wax oo xanuunaad iyo wax oo soke ma ku hayso oo ma aragtay wuu ku dhex noolaanaya ilaa laga daaweynayo qofkaaseeto marka dhibaatooyinka kala kulmi kartida waxay tahay markaaseeto in oo ma aragtay caloosha ku xanuunto lablabo inuu kugu dhacdo ama calooshii iska bararto cuntada sidii oo lagugu talagala ama sidii caadi ahayd uma qaadanaysid dadka barkoodna ma aragtay boog ayaa uga soo baxdo caloosh dhexdiisa boog uga soo baxaysa dad wuu ka soo baxaa dadna ma ka soo baxo marka ilaahay amarkiis waaye lama oga sida taasi ku dhacday macquul waxaa keeni karto qofkaanita ma aragtay in uu jinsi u leeyahay ama ma aragtay diinaagiisa waxaanita uu ku jiro marka badanaa qofka biniaadamka dhibaatadanita waqti badan markay hayso ama waqti yarba ha hayso dhibaatooyinka kala kulmaysa waxawaaye markaasita adiga gastriga ayaa ku dhacayo ma aragtay waa dhibaatooyinkana way badanayaan marka in waxaa muhiim qofka in liska daaweeyo xanuunkanita in liska daaweeyo inaad aqoonsatidna waa muhiim xataa sheeka xataa lisku keenay haddii oo xanuunkanita waqti badan uu ku haayo ma aragtay xataa inuu jaaniska weyneynayo inuu kansarka caloosha uu kugu dhaco maadaama infectionkanita waqti badan markuu ku haayo kuma dhahayo hadda bakteeriyada markay kugu daahdo laakiin infection uu kugu keeni karaa ya dheecaanka calooshan sameynaya ayaa infection caloosha dhexdeeda infection ka dhalan karaa oo burburinayo ma aragtay adiga calooshaada dhexdeeda dhaawacyana kugu reebayo taaseeto waqti badan hadday kugu qaadatay in oo jaaniska u weyn yahay in caloosha kansarkaaga dhaco marka waxaa muhiim ahoona ma aragtay inuu ku celcelinayo waxay tahay in lagaa daaweeyo dhakhtar aad la kulantid dhibaatadaada u sheegatid okay marka siduu xaalka noqonaya dhakhtarkana muxuu ku qaban karaa dhakhtarka wuxuu ku diri karaa ma aragtay in dhiig baaris ama xaarka laga baaro sidaas ayayna ku ogaan karaan inuu bakteeriyadan ku haysay in kaleeto xaarka ayay ka dhex arkayaan teeda kaleeto waxaa jirto qalab oo neefta ahaan qaybta neef afuufa waxaan lagu leeyahay camal ma aragtay wax cabitaan oo adiga ama sharoobo waxaa lagu siinaya oo urayam la dhahayo oo cabitaan camal wixii marka ku neebsatid mashiintii wixii ku neebsatid waa bakteeriyada meeshaas yeeta in calooshaada ku dhex jirto in kale ku ogaan karaan laakiin saas ma loo hubo waa adiga 90% ay cadeynaysaa oo la aaminsan yahay okay baarista kaleeto marka oo muhiimada waxa waaye gastroscopy waaye waa calooshaada dhexdeeda wax laga soo goynaya jab yar oo hilib laga soo goynaya kaasa la baaraya bakteeriya laga baaraya xanuunkanita bakteeriyadan badanaa antibiyootik kala duwan loo qoraa qofka waxaana loo qoraa kaniiniga gaaska ayaa qofka loo qoraa si oo caloosha ma aragtay u reesato antibiyootikahanitan bakteeriyada u dilo kadibna wasaqdii wixii dhan sidaas lagu xambaaro ma aragtay jirka looga bixiyo marka sidaas darteed dhakhtar waa inaa booqatiin insha Allah marka xigta antibiyootikaha markii lagu qoro dhibaato la kala kulmi kartaa oo daawada dhankeeda maxaa yeelay antibiyootikaha bakteeriyadaaseyto oo loogu talagalay dilays laakiin calooshaada mandhicirkaaga daawo bakteeriya kaleeto ku jirto ayuu dilayaa sidaas darteed markaaseytane waxaa kugu dhacayo shuban ama calool xanuun iyo kugu dhacayo marka si uu maaragtay waxa calooshaadan u dhaawacin waxaa lagu qorayaa kaniinigaaseeto oo caloosha dhexdeeda difaacayo oona reesashada cayuub u reesanayso waan igu dheeraaday sorry assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu